qalbiga walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda waraagtay kulan wacan dhegeystayaal waa qaybtii 33aad ee sheekadii la magac baxday la mid ah iyo lur jacayl sheekadani waxaa qalin ku qaatay Alabwan Ismasi Tawsi waxaadna kala socotaan idaacadeena Hirsamo dhegeysi haboon qaybtan 33aad oo ah qayb aad u xiiso badan isla markaana siyaasha ay aad kaga helan qadoonaan qaybtan 33aad ee sheekada waxay nooga bilaaban doontaa hamuuntii kalgacal ee baaricadde iyo haylowgii Barni isla habeenkii baaricadde wuxuu taleefankiisii ka wacay lamaantiisii Barni dhankeeda xitaa oo xilliga u ahayd 6:00 subaxnimo ee xilliga Yurub Barni markay nambarkeedii eegtay ilaa dhowr kool ayaa soo wacay oo ahaa nambarkii baarigeeda waxay isku dayday inay ku celiso waayo Barni dareenkeedii waxay u hanqal dhowraysay baari inay marqura la hadasho ama ay wacdo isla durbaba waxaa soo dhawaaqay taleefankii Barni mobilkii Barni oo farxad la balanbalaysa sida tiyo la yiri wiilkaad jecelayd uu ku guursan raba ayay hadalkiiba ka bilowday ayadoo leh hello macaan badanow baarigayga baaricadda dhawaqa sawdka Barni markuu maqlay wuxuu awoodi kari waayay inuu u jawaabo waxaana hal mar ka soo daatay indhihiisii ilmaha shaq oo hamuun darteedii kaga yimi markaasuu cod macaan oo daciif ah ku yiri macaan badanay Barnideeda Barni qudheeda xitaa saameyn ayay ku yeelatay hadalka baarigeeda kolkay maqashay ayadoo la dareensan dhibta caashiqiisa ayay tiri baarigaygiyow bal ii waran macaan badankayga baaricaddo oo isfurfuraya ayaa ugu jawaabay xabiibti aad baan kuugu ladanahay inkastoo laabtayda marnaba aadan ka go'ayn misna la'aantaadii laxaw aan dhammaad lahayn lubiga aad iiga qarisay Barnideedii adiga iyo waran Barnina waxay kaga sheekaysay xaaladii kala duwanaa ee soo maray Barina dhankiisii wuxuu kaga warbixiyay wax walba oo markaa jiray isla markaana tusiyay in dhacdooyinkiisii uu kaga falanqooday waxayna Bari iyo Barni isla qaateen waqti dheer waayo Bari iyo Barni waa kuwa laabtoodu mid tahay misna midba midka kale jacayl waaliha isku qabaan waxaana hadalka waday labada dhinac Barni ayaa baarigeedii ku tiri misna iyadoo la kaftamaysa Bariyow adiga waxaad ii qiraysaa inaad i jeceshahay balse ma i tusi kartaa jacaylka muuqaalkiisa mise i taabsiin kartaa wuxuu yahay baaricaddo oo dhol cadeynaya ayaa ugu jawaabay jacaylka muuqaalkiisu waa farxad markii la taaban gaadhana waa dareen waayo jacaylku maahan muuqaal dadku dhan arki karaan ee waxaa si dhab ah u arki kara waa midka kaliya ee gacanta ku dhiga lamaane sideenoo kale ah waayo way adkaan lahayd haddaan adiga ku heli lahayd inaan ruux si dhaba u jeclaado sababtoo ah Barniyey waxaad ila mid tahay waa mid aan afka ka sheegin karin misna uurku uu qirayo
dhegeystayaal waxaa halkaa inooga dhan qaybtii 33aad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jacayl intaynu dib kulmi doono qaybtan qaybta xigta ee 34aad waxaan idiin leenahay sidaa iyo nabadiino markaad wehelsiisay naftayda wareertay mafrihii ku tabaayay kolkaa tidhi waykan walaacii haystay daqiiqad ku waayay waqnii ku tabaayay kolkaa tidhi waykan walaacii haystay daqiiqad ku waayay